dadka deegaanka beled xaawo ayaa ku eedeynaya dowladda Kenya in ay wado wax ka bedel ku saabsan xuduudii u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ay arkeen dowladda Kenya oo fujinaysa calaamadihii hore iyaga oo taagaya ama sameynaya calaamado cusub. Gudoomiyaha degmada beled xaawo Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Yuusuf Gandi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalka Kenya ay meelaha qaar gudaha u soo galeen xuduudda dalka Soomaaliya. Walaal meesha ana gudoomiye ka ah dib baan yaalo oo niman Kenya la yiraahdo muxuu ahaa ayaa dib lagu hayo oo dhul doon maxaad ula jeedaa? waxaan uga jeedaa dhulka yagii bay muxuu ahaa dhulkii dhinac beled xaawo koof meesha waqooyigeeda ana muxuu ahaa dhulkii naga dhaxeeyay bay dhulna ayagaa leh dhulna annagaa leh midna waa naga dhaxeeya dhankaas midkii naga dhaxeeyay bay meeshuu ku ekaabay god ka jeexayaan dhanka kale oo koonfurta oo beled xaawo markii looga baxana dhulkanagii bay kilomitira soo galeen oo ay rabaan inay qaataan calaamadihii awal muxuu ahaa dadka gumaystuhu meeshaa geliyeyna muxuu ahaa way bixiyeen war joojiya meeshaan ku wada hadalla markaan lirina way diideen. marka yaa wada tallaabadan yaa wada hadasheen aad diiday inay joojiyaan? maamulkooda la hadalay waxaan ku niri naga joojiya aan ku wada hadalna joojiya. waan gartay maxay kugu jawaabeen? maamulka Madheera weeye waxay ugu jawaabeen county professionalkii baa naga maqan shaqadana ma joojin karno dawladda soo amartay. marka ilaa dhul intee la eg bay gudaha u soo galeen haddaad dadka cabirka siisid aan garanayn qiyaasta halkaas iyo meelaha tilmaamaysid? walaalle dhanka koonfureed markii muxuu ahaayo xadku kor aado Kenya xaggeeda iyo dhulkaas sii aadahayana dhanka koonfureed magaalada ka ana kilomitray soo galeen baan ku yiri kilomitir iyo bar kama yara inta ay dhulka iyaga soo galeen. marka maxay uga jeedaan tallaabadan maxaa xilligan keenay baad isleedahay gudoomiyaha taxaaladana wad og tahay? walaalow waxaan u malaynahayaa micno kale waa u waayay baddii ay la sheegahayay oo way muxuu ahaa badda bay ku haystaan lalahaa inay waafajinayaan baan u malaynaynaa saasaan ku micnaha muxuu ahaa aada ugu qaad. marka mas-uuliyiin ka sarreysa kuwa deegaanka ma la xidhiidhay oo arrintan ama ma kala hadashay? waxaan u sheegahayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegahayaa dhulboobkaas in lagula hayo dawladdan u dawlad la'nahay mid goboleed iyo midna muxuu ahaaye tan iyo xalaytaan waxaan wacahayay xildhibaanadii golaha shacabka aan wacahayay dadkaas oo xogaa la xiriiray ma ahe wax kale oo muxuu ahaa wax u sheegayna ma jiraan. Kenyana waxaan leeyahay dawladda Kenya hanaga daysa dhulboobka haysa bad bay nagu haysatay gardarra ah dhulkanagii bay u soo dhigatay iyo deegaankanagii hanaga daysaan leedahay muxuu ahaa Kenya muxuu ahaa dhulboobka ay nagu hayso ay dala damacday. sidoo kalena qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyagu arrintan cabasho ka muujiyey sida uu leeyahay nabadoon Idris Aadan Gaaroodi oo ka mid ah odayaasha guursida ee degmada beled xaawo. barnaamijka ceelasha badda Soomaaliya ee horay boobka ugu galeen iyo xuduudkanaga inay hadda isku toosinayso oo koob xuduud cusub ay samaysanayso maadaama ay dawladda federaalka aysan awood lahayn degmadan beled xaawada ciidan dawladeed oo xoog leh oo awood leh oo hor istaaga aysan lahayn in ay dhulboobkaas u socoto halkaasna ay ka wado waxa calaamadaha ay u fujinaysana si aan loogu murmin raadadkii hore ay tirtiraysa ayaan u aragnaa ma garat shub muuqdo oo calaamadaysan oo waaweyn waaye taagan intaa le qof joogiis adiga xabadka igu dhacayo marka shubkii ilaa gees dhinaca waa saddex meelood buu ka samaysan yahay Kenya iyo Ethiopia iyo meeshaan isugu imaano dhinacan kalena dalcadda wuxuu ka fuulaa beled xaawo dhinaca looga baxayo ilaa dhulkaas alwaaqaya dhulkaas uu sii gudbaa oo kor ka maraa marka iyadu wixii bay la dagaalamaysaa raadkii bay baabi'inaysaa marka way jeexaysaa oo jeexdin weyn oo weliba dhinaca ayay soo gelinaysaa cabirkana wuxuu ku soo toosmaya beled xaawo gudaheedu ku soo toosmaya ma garan. haddaba VOA waxay isku dayday in ay hesho mas'uuliyiinta Kenya ee arrintan ka warbixin kara inkastoo aanu saraakiil kala duwan la xidhiidhnay haddana waxaa noo suura gashay in aanu ugu dambeyn khadka telefoon ku helno xildhibaan Cabduqaadir Oore Axmed oo ka tirsan guddida ammaanka iyo maamulka ee baarlamaanka dalka Kenya wuxuuna sheegay in ay soo gaadhay cabashadani isla markaana ay kulamo kala yeesheen mas'uuliyiinta ay khusayso. warkaas waan maqalnay annaga waan maqalnay laakiin wax xog on u hayna ma laha sida run ahaantiina wax hadda la xaqiijin kara ma aha
waxaa daaray arrinta xuduudka haddii ay labada dawlad ay maaragtay ay ka qayb gelin oo wax agreement oo maaragtay ay isla wada meel dhigeen oo xuduudka meesha marahayo maaragtay laga wada tashaday haddii ahayn mid bay noqonaysaa lama garan karo in xuduudka meesha loogu tarbiya sida warka haddana soo geerayana dadkii maaragtay deegaanka weliba beled xaawo oo kalaatu degan cabasho badan inay soo jeedinahayaan oo meelihii maanta xaafidihii in maaragtay meesha hadda gadaalka laga dhisaayo aad maaragtay aad soo galay marka saasaan hadda aan war ugu hayna lakin wax xaqiijin karna ma aha laakiin warkan wuu isa soo taraya sida idinkaba laydin soo gaadhsiiyey miyaanay u muuqanayn dhinaca Kenya in ay iyadu keligeed tallaabo qaaday warku dhinaca miyaan u dhici karin walaal waa caddahay Kenya inay tallaabo qaaday Kenya naftinkeeda arrintan kala si fiican looga tashaday oo si fiican loo falanqay oo baarlamaanka la keenay oo dadkii madaxdii hataa maaragtay dhankaas kasoo jeeday gobolka waqooyi bari kasoo jeeday lagala tashaday ma ahayn ama la wargelay marka waxay u muuqataa inay tahay tallaabo dawladda dhexe keligeed ka socota absolutely waa tallaabo ay dawladda dhexe keligeed ay qaadatay oo maaragtay cidna ay ka qayb gelin marka sida aan filaynana hadde tallaabo wanaagsan ma aha waana ognahay hadde Soomaaliya iyo Kenya weliba dhankaas sida isku yihiin dadka maaragtay isu socodkii iyo wax amniga dib bay sii keenaysaa laakiin xal inay keenaysa anaga uma arkaya marka ma lays odhan karaa waa xidhiidh wuxuu ka dhexeeyaa arrintii murankii badda beryahanba taagnaa oo dadka qaarkood ay leeyihiin saameyn ama xidhiidh uunbaa ka dhexeeya tallaabadan ay iminka dawladda Kenya qaaday iyo tallaabadii hore walaal way noqon kartaa in maaragtay fursadan ay Soomaaliya hadda stable central government ay weli ay yeelanin intaas in laga faa'iideysanayo oo maaragtay xuduudaheeda dhinac walba laga soo galayo waan ognahay intaas oo sano marka baarlamaan ahaan idinka maxaa arrintan aad tallaabo ka qaadaysaan sidee baad u waajahaysaan maadaamay tahay arrin saameyn ku yeelanaysa labadii dal ee Soomaaliya iyo Kenyaba walaal arrintan anaga guddi ahaan wixii kala ah waan siinay advice waan siinay wasaaradda arrintaas ku shuqlaan waan siinay laakiin sida aad hadda og tahayba iyadoo maaragtay fiil laga dhiganahayo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha lamid ah tallaabo badan oon maaragtay dadka dadweynaha iyo maaragtay madaxda iyo baarlamaanka aan laga qayb gelinaynin oo maaragtay laiska qaadayo waa jirtaa iyadoo maaragtay dawladda kulley in ay maaragtay dawlado kale dan kale dad kale oo waxa anaga aan dan noon ahayn ama aan wadankan aan ka soconin ayagoo la tashanahaya marka iyaa taladaa siiseen ma wasaaradda arrimaha gudaha ma wasaaradda arrimaha dibadda ma madaxweynaha ololahan wixii wada waa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka iyo dadka ka hoos shaqeynay kulli waan maaragtay arrintan waan u gudbinay ilaa al'aankaana waxa maaragtay tallaabo laga qaaday ma laha marka idinka oo baarlamaanka abaa u gudbiseen oo isku dhafan mise idinka oo xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka Soomaalida annaga oo xildhibaanada kasoo jeeda dhanka Soomaalida annagoo ah maaragtay guddiga amniga waan usoo jeedinay in ay maaragtay taladan wax socona ay ahayn laakiin weli hadda wax tallaabo laga qaaday ma laha marka jawaabta idinku soo celiyeen maxay noqotay jawaabta ay nagu soo celiyeen waqti iidaheed waxay ahayd in arrinta ayagana ay maaragtay ay talada iyada ay ku laabanayaan wixii possible wixii ka qaban karaan inay fiirinayaan iyo wixii la iska bedeli karo laakiin ilaa aankan wax isbedel ma laha arrinta waa socotay maaragtay meeshii waa la dhisahayaa sidaan ogna hadda si aan macluumaad intaas dheer u helo waxaan isku daynay in aanu khadka telefoon ku helo saraakiil kale oo ka jawaabi kara eedaha loo soo jeedinayo dalka Kenya hase ahaatee noomay suuro gelin